hiliyahoba nafkuuraysa hadka dharartii ku haybinaysa habeenkii jiifka kugu adraysa adiyo jeerba ku hadlaysa amiga caashaqa adaw horseeday. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويلكم صدقني أوفيشال كسر هذا دمان أصحاب الدنيا تعالى نور صدقني كسر هذا waxaan idin akhriyaa xismaha maalin kasta xubad la welcome hadii markii guud taagtanka subscribe ku dhufo diixana balay ku taabo suuqa ku taabo kambaraka insha Allah taala xariiriya maanta waxaan idin wadaa muuqaal reaction bay idin wadaa waxaan maanta raashid bixina shakhsiyada sheekha la raga bixina wax buuri intuu kaga yaabi horta intaan reaction gudbin baa soo dhigaya nigi shakhsiyada waa loo gaadin inuu jahtada reaction bixiyo ay Afrika marmaanka duubaan ay Afghanistan marka هو la soo gaaday sawirka insha Allah taala ka doontan markuu lahaa socdaal waji yaa la tegay showgiisa inaga balaqaansa ha soo afartii kamarmaan ba ha koosna marka barka action socorina saxaabta qaaliga bal si fiican ila daawada ninki musabbixo u soo dhigtay ayaay wuxuu ku leeyahay musabbix tii gaaladana uu ku dhaqmi laayahay kii ilaahayna ku dhaqmi laayahay hada way muxuu nagu xukumaa mid kale ka gaalada muslimaan maxaa noo geeyay dastuur gaalo bal ku socon muuse hargeysa meel xun uu ku sida hadaad saan ku sii socotaan Djibouti iyo Ali Sabiix iyo Jigjiga iyo Muqdisho iyo Garowe aad soo qixi doontaan wuxuu leeyahay hada musabbix tasan widigu si wado wad qixi doontaan maxana qixinayna Muqdisho ugu sanaga sheekh mid kale reaction wuxuu ku soo qaadanaya intaas oo kun oo mag markii kaliya aan reaction tay waxa soo magac iyo waxa soo qof lagu soo qaato marag bal ku socon reaction dastuurka Hargeysa waxa ku qoran qofka inaan 24 saac ka badan la haysan karin wuxuu leeyahay Generaal Muuse markuu la hadlayo saxaafadda wuxuu leeyahay garsoorku uu ka madax banaan yahay madaxtooyada beentiis waay wadaadada Hargeysa joogay cilmigu xaqiri ay aan jeclahay aan xurmada u haaya ay madaxa hoos geynayo reer Hargeysa shib been sheegaya ninka Muuse la leeyahay umada heere nigida musabbix inuu soo dhigtay ما واحد مو سهر جسم مقدشو هذا الله أنت كيف الشيخ ويكركروني سؤال بالكويتية شيخ ما حد يقول سهر جسم إيه تمادد يعني كسر الشيخ لين تلو عباية بالفلان وحي ضد كايو الرجال حمر كان عن سنة بالكور يسوع لين تلو عباية إنه نفهم ما هينه بالكسر موسى جيتك فرعون وكسرعيا بسم الله والصلاة والسلام على رسول وحول موسى تتخلق قبته وكسر جدك فرعون إنا لله وإنا إليه راجعون هذا الشيخ كان الشيخ ما هم لكن هو سجى مرا فرعون يقول موسى كسر جدك فرعون موسى ما هو عندك موسى كاي سومال لنا الحكومية بتجي حتى معها والدولة سجرت بركة سومال لما معها فرق كسر جدي الشيخ هو خلطان تاني وخلط كاي الشيخ هو غلط الكسر وعماد سن ومعاد له الله عربك وأمانتي سونا كدالين دين شاملة وسماوية ومتواترة نوضيقي مركا حكتو حربا ولالكي عبدي مالك موسى علدون إنان كلمات كيرادو دولمي وياهن لغوهايي حرية انتو قبي او بنان وحنا عندنا هنا موسى علدون كلمات كيرادو mid asarta hawl ku taala maaha waa hawl taala madaxda Soomaaliland iyagaana xiray iyagaana dambigu gal ku xiray marka adiga hawl ku taala maaha Soomaaliland ma xukunti sax gartay ma sheekh mid sidee wada anigu waxa ku talaba garmaaye marka ina ka hesho horta loo baxro Soomaaliland sababtoo ah way ila xiriirkeedii istudiyada ku socoto Soomaaliland وانا وطن بال مرح بنام كسعنبل oo
oo samafalka iyo masaakiinta iyo dadka xanuunsan iyo dadka baahida gaarka qabo oo xafladaha uu ka qayb galayay baa dulmiga lagu haayay laakiin hadda dulmigii cadaaday ninka muuse la yiraahdo General Muuse Bixi ee madaxtooyada Hargeysa fadhaaya rabaa in la hadlo iyo xuqaasha jiif caaqil isimada salaadiinta reer Hargeysa wuxuu leeyahay Muuse Bixi la hadlan doonaya markaas waxa doonaysa in Hargeysa timaado masaajidada raash ku bixis taa ka yeelimin Hargeysa cidi timaada liintu bi ku cabta reekshay xal laga yaqaan Hargeysa Hargeysa xajta culimada waxaan ku ma sha Allah iyo diin marka shaqada reekshay xaas xamar hadda masaajidada raash ka bixisid Hargeysa xal laga yaqaan Soomaaliland liintu bal wacda ku socona muuqaalka qoradooda haba ugu horeeyo boqor buur madow warninka Muuse la leeyahay ummadda laga qabto Muuse jidkii Fircoon uu ku socaya waxa leeyahay Muuse dadka laga qabtay muxuu sameeyay oo laga qabanay su'aasha nooga soo Sheekh Furiyoogina intuu soo gaaro su'aal baa weydiinaya Muuse iyo Fircoon maxaa soo badhigay Muuse waa nin islaama Fircoon nin gaalabaha marka Muuse maxaa dadka laga qabanaya uu sameeyay waxa dhe ya Sheekh su'aashu kaga fadhin Muuse waxa dadka laga qabanaya weyn baraha bulshada u cadeysay Muuse waxa dadka laga qabo ku socona Furiyo waxa marka runta ni cadeeyo Muuse reer Hargeysa wuxuu rabaa inuu niiduleysto Allah jalla wa ala Fircoon dulmigiisi qarab ayuu haystay Allah wuxuu yiri fastakhaffa وفضيتsaday qawmahu qawmkiisi ayuu fudaysaday aqliga iyo damiirka uu ka xaday dulmigiisi ay garbo u noqdeen wuxuu leeyahay Muuse wuxuu duleystay Hargeysa waa mid aragtay Muuse reer ka duleysay madaxweynaha sharafta leh marka shaqniyo hadalada kullu waxaan ka dareemayaa ina doonaysa in Hargeysa timaadid oo reesh ka bixis Muuse san duu fahmay hadalada wax kale Hargeysa ugu soo قادم فريوغني متى كده حتى جالس كنا Hargeysa Muuse Bixi raash ka bixisay tikada Sheekh Soomaaliyeed oo taanaya marka Muuse Bixi dadka u dulmiyay waxay ku dulmiyaan garamayna dib adu noo sheekh sheekh waa sheekh ama dadka sheekh lama dhihi karaa waxay ku dulmiyaan garamayna sheekh mujaaji raash dadka ka bixinay cid kasta mid ka xataa waxa laga yaabsan raash ku soo qaaday intaas ku noqof يا حسين ولا أفرتن كاميرمان يوتيوب أوفر أيوة تذكر magacyada u soo qorqora marka raashka taswiidiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.